xidiga khadka dhexe ee kooxda Manchester City Bernardo Silva ayaa tilmaamay inuu u furan yahay inuu ku laabto kooxdiisii hore Benfica haddii ay doonayaan inuu dib u soo celiyaan 25 sano jirkan ayaa ka tagay 25 jirkan ayaa ka tagay kooxda reer Portugal sanadkii 2014 waxaanu aaday kooxda Monaco kadib markii uu kaliya 3 kulan u ciyaaray kooxda koowaad isagoo la hadlayay Eleven Sport waxa uu yiri Silva horaan u sheegay dhowr jeer waxaan leeyahay faaruqin ah in aan wax yar ka tagay sida daraadeed waxa aan u maleynayaa in aan soo noqon doono haddii ay halkaasi ay iga doonayaan waxa aan u maleynayaa in aan soo laaban doono ayuu Silva ku daray hadalkiisa. hadallada Silva ayaa yimiday ka hor inta aan la shaacin in Man City laga mamnuuco kubadda cagta Yurub labada xilli ciyaareed ee soo socda kadib markii la sheegay inay jebiyeen sharciga dhaqaale wanaaga. si kastaba ha noqotee ganaaxan ayaa shaki geliyay mustaqbalka ciyaartoy badan oo kooxda koowaad ah oo ku jira Silva kaas oo dhaliyay 29 gool 138 kulan oo saftay tan iyo markii uu ku biiray kooxda Man City 2017 waxaanu ka mid yahay kuwa loo maleynayo inay xagaagan ka tagayaan garoonka Etihad ee Manchester City.